marka inta la keenay shiiqa salaama lideh ma u jeedi shiiqa codkiisu waa maqlayaa bad wuxuu dhaheen habal welin meelaad joogtaa meel oo lagu aaminsan yahay qur-aankaad joogtaa masjidaad joogtaa ha cabsoon yaa allah yaa allah wallaahi billaahi watallaahi qur-aanka aayadda koowaad markii saan lii saara dareenkeyga ka dareen anugu meesha jiifaa arkay hal il inay ii muuqatay iftiinka wax yar ii bilaawdee aadhe maxaa kow hadal hadduu ii furma lahay wallaahi aadhii lahay qur-aankan habeen iyo subax intaan iga qaadin yaan inta ku jiro markaa arkay iftiin yar oo meel fog ka arkaayo oo samiicadna maqlaayo qur-aanka ilaahay lana maqlaayo aadhehe hal mar hataa ma fiiri karaa qofkaas qur-aanka akhrinaayo aaldhaho maalin iyo subax wad qur-aanka haan ka istaagin qof kastoo xanuunsan ha isdhihin daawo ha isdhihin dhakhtar wallaahi dhakhtar wuxuu ilaahay meel istaajiye dhakhtar ma ahee dhakhtaryaala wallaahi inaa daaweynin anaa ku cimar qaatay anaa arke intaas cerbadaali dure intaas daawa cune wuxuu tara ma lahan bad hal maruu qur-aanka ilaahay la akhriye a arke inuu wuxuu yahay qur-aanka yaa rabbi ya da aljalaali waalikraam بسم الله الرحمن الرحيم كلمة كلمان استاجن وشكرا لله تبارك وتعالى وحن كشيكيني لبضع مالين ومجالس قرآن فرحة واحد ويل سيدة بنجرة وحنون صناع اسبتال قلسو دالي الله سبحانه وتعالى قرآن كعافي marka runtii maanta marqamii soo xirtay asoo keligiis socdo soo galay majaalis masaajidka aad baan ugu farxay marka waxaan iri dadka la wadaag farxadda ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisii caafimaadku dhex dhigay iyo waxa ka faa'iiday ka sheekeeyey marka cabdiqani oo markaan isbaranaynin kow la keenay garanaynin indhahana wax ka arkaynin joodarigiisina lala waday xataa familigiis markayna la soo hadleen waxay dhaheen qof oo waxaan wadnaa xaalad degdeg ah marka ma sugi karno marka iimaan quraanka hore laga saaro oo 5 qof soo lagu wada la keenay oo runtii il iyo waxa ku dhacay ma garan karo oo dhibaato badan qabsatay marka reerkiisina way joogaan aabiisa joogsooma ma kulligooda wada faraxsan annaka dhana wada faraxsan oo waxaan ku faraxsanahay allah jalla jalaaluhu wiilkeena culeyskii saarnaa ka qaaday marka asaga aan u baneeyo inuu hadlo sida wax u dhaceen iyo wuxuu arkay quraanka wuxuu ka faa'iiday sadar muuqdo maxaa la dhahay su'aal ka dhan جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم ما تسيد وفرح صنعي كلامك إلهي إنه كفرح صنعي inaan ku soo laabto meeshii daawada lagu daaweeyey waan faraxsanahay meel badanaa aadnay dhakhtar badanaa la aaday daawo la daaweeye waa la waayey xanuunkan waa la waayey daawadeeda bad meeluu ilaahay ii waday oo meel maskaxda igu soo dhirjiyey inaa masaajid ama meel majaalis inaa aado markaas maalinta waxay ahayd arbacada xanuun oo aad igu soo kacay hal mar maxaa is arkeen oo dhakhtarka joogo oo cirbada lagu duraayo mana hadli karin neeftana way igu dhagan tahay bad ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah sidaa ugu celcelinayay qur-aan lagu tufaayay aadhahe kuwaan wax ma soo wadaane maalinne arbacaa lasii kiyaa lasii marooyaaye isliine meelkan igu daaweeye dhakhtarkan hadala hala raadiyo ama daawo kan hala raadiyo markaas aa la dhahee shiikh aa meel
meeluu fadhiistaa oo masaajid ah oo la isku daaweeyo oo qur-aanka kalaamka ilaahay keligeeda lagu akhriyo subax iyo habeen waxaa la dhahay meel aad jirto anina ma halli kari mana dhihi kari haligeeyo yaani ligeenin but awoodda yaa leh ilaahay yaa leh markaas hooye aabbay soo qaadeen ani sii lii sheegay waxaa i fadhiisiyey xagga waxna ma arki kari hadalkan ma iga soo bixi karo but waxaa dhahe ilaahay daawigaa dhigitino qur-aankan ilaahay awoodday haysto ilaahayaa ka saayo qofkana ka siin ma lahan markii inta laysoo fadhiisiyey waxay ahayd sidii lii sheegay maalin isliinta waa fikir yani maskaxdeeda dhammaa wareersan bad quraana marka inta la keenay shiiqa salaama lidhah ma u jeedi shiiqa codkiisa waa maqlayaa bad waxay dhaheen habal welin meelaad joogtaa meel oo lagu aaminsan yahay qur-aankaad joogtaa مسجد جوكتا عبصون يا الله يا الله كاسا قرآن لساري والله بالله وتالله قرآن كآياتك واتمرك إنسان لساري ترين كيغا كترين أنا ماشي جيفا أركي هل أنا إيه موقتي فتينك وحير إيه بالله وذي آدم حاكو هذا الحدو إيه فرما لها والله عدي لها القرآن كان هبيني صباح انت هذه قاضي يعني انت كتيرو مركا اركيفتين ير اميل فك اركايو وسمي عدنا مقلايو قرآن كي لا إلا مقلايو هذا هل من حتى ما في ركرا قفكاس قرآن كاخرينايو الدهو مالين صباح وات قرآن هان كيستاجي وأنا فيري إيش اللي كاركويا بس قرآن كوي وذين إيش والله إيشان واني إيشان هل واركوي قرآن كآيات كستو جس كستلا دمين آيو وأنا فيري نويا هذا الكيغني من هل كيري بس قعمها كهالله يا رب هذا gacmaha kor u taagaya bad waa la wada quraanka waa la wada maalinta talaadada liigu soo celiyay bad inta bixin ilaahay wuxuu igu saacideeyay hadal ina afkeyga hal mar hallo oo ilaahay ii fududeeyay markaas la dhahay gaariga kor waa bixuna aadhe laa ilaaha illa allah meeshii ma iga soo wadeen ما دكتورك ما يعلنسين أو داوي واي وماش اللي قد داوين يسوي ذيسين هاي جاب ذيسين انت كنا لاذ انت كتوغي انت ولي عن بيجي قدام هستو على ده ما القرآن كهدوا بدل ما ذي القرآن هتالي شيء ذوق مساجد كان يعني اللي جودين هذا أصبح صوت صلاة المغرب أدم كذا مقالة هذا لا إله إلا الله أنت وصعنا مساجدك يقعليها مساجدك كصلاة صلاة دينا تكني صلاة المغرب كنت كذا أنت فرحد عايز لها إنان صوتك إنا بالله قعمها كجريرة مركز هذا شيخ إيرادية شيخ عساك سايد داود ذي شيخ إيرادية هاي علي قرآن هاي عليه سيدي أو داو نقضى إلهي رب الرحمن غفور يغفر البابها مركز لده شيخ حقا سوتاجي ماركا يعني يجي أنا كسايو وحاكو حلي لهاي مركز عدكيغا هتا زريمي لهد أركي لهد هدي لهد والله waxaa u furmada cuniga markaasaa shiikhu tagaadhe shiikhu waa u deedaa
awood ma haysti qur-aankaas ahayn waa ku baryayaa mar kasta inta imaado ama mar kasto kalaam allah ha ka daarnaada inta waxa kan hono ka daarnaanin dad badanna ha imaadaan ha ku iman qaataan intaas dhakhtara aad intaas lacagaas ka khasaaraysa wuxuu ku taraa ma lahan wallaahi oo billaahi oo tallah wuxuu ku taraa ma lahan markaasaa ku dheh shiiqo dhakhtarkana ma jiro intaa jooga inta hataa ilaahay amaalin guriga dhisaayo jannada ee masaajidkan inaa ka baxeenin oo dhehmaya orod soo noso birikanimo mar kasta intuu ku furan tahay imaaw aa ku dhehe wallaahi ilaahay ha ku xifdiyo ilaahay ha ku xifdiyo wiligaagane ilaahay ha ku xifdiyo yaani inta masaajidkan yuuna kaa qaadin ilaahay meeshaan ku noolaaw sidii dad badan u imaadaan u daaweysid oo qur-aanka ilaahay kalaam allah ku daaweysid aabaxe guriga markaa tage wixii ma igu soo laabta miya indhihiya waxa ka arki waaya adhehe laa ilaaha ila allah waan ii sheegay daawada iga soo wadeen masaajidka iga soo wadeen waa kaasaa yaa rab yaa rab yaa rab haweenay subaxsaa u tukanaaye markaasaa haweenka dhamsaa u taagnaaye ilaahu baryaaye oo ilaahay ishii fure markaas dhexe wallaahi daawo wax ku taraysa ma lahan ilaa qur-aanka kalaam allah ahayn kalaam allah meehe ku soo laabo markaasaa dhehe anaa maalin ilaahay hadduu gacmaha indhaha iisoo furo afkana hadalkana iisoo baxo wallaahi anaa albaabkana ka soo gelaayo anoo keligeyga ah maatana waa kanaa keligeyga albaabka ka soo gala alxamdu lilah ilaah mahad iska leh eemahe qofkane ilaaha dhihi karin ilaah mahad iska leh eemeehe qof kastoo xanuunsan ha isdhihin daawo ha isdhihin dhakhtar wallaahi dhakhtar wuxuu ilaahay meel istaajiye dhakhtar meehe dhakhtaryaala wallaahi inaa daaweynin anaa ku cimar qaatay anaa arke intaas cerbadaali dure intaas daawa cune wuxuu tara ma lahan bad hal maruu qur-aanka ilaahay la akhriye a arke inuu wuxuu yahay qur-aanka yaa rabbi ya da aljalaali waalikraam ilaahay rabbi raxmaano waxaa ka baryayaa qof kastoo i arkaayo oo qof kastoo i dhegaysanaayo hadduu qofkaa xanuunsanaado inta waaye meelkana ma ahan dhakhtar haddaa la aadid waa arkaysaa meel kastoo quraan waa siiba meel kastoo quraan oo lagu akrinaayo oo masaajid ha isdhihin dhakhtar wallaahi dhakhtar inuu wax ku ahayn wallaahi waana dhaaranaa maalin jimcaa taaganahaye wallaahi daawo inuu wax ku ahayn maalinta labaad maalinta saddexaad markaa imaadee anaa inta ka kici waaye adhehem wallaahi hadda ma ii wadaysiin ilaa inta sariirteeda ii keena ama inta meel ii dhigato horigeyga intaa ku noolaanaya wiligeygana hadda marka albaabka ka baxaaya mar kasta albaabkan ka baxaaya waxaa dareemaya laa ilaaha ila allah meeshii ka soo tagtay maxaa kuu horeenaayo weyse ma qabtaa hal quraan akhri hal aayad akhri hal mar isku day intay haddee nafta kaa baxaysa adoo qur-aanka akhrinaysid naftaa kaa baxdo dadka hadda waxaan inigu sheegayaa oo mar kastana nii sheegayaa wallaahi habeen haysanina daawo waxay taraysa malaha inta waay daawada jazaaka allahu khayrum ilaahay ha barakeeyo ilaahayo wax kasta qof kastoo xanuunsan
ilaahay rabbi raxmaan oo daawadiisii sheekhayaashan waa ujeedsaa intay haweenkii subaxdii joogaan ilaahay rabbi raxmaano waan ku baryayaa yaa rabbi yaa dal jalaali walikraam ilaahay rabbi raxmaano qof kasta daawadiisa adaa oge yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi sidaa ii daaweysi qof kastoo oo og ilaahay rabbi raxmaan oo xanuunsan u daawee ilaahay rabbi raxmaan oo masaajidaha hagalaan ku kalif inuu kalaam allah ee dhegaystaan ee maqlaan ee dhegaystaan ee maqlaan ee markasta ku celceliyaan ee afkooda ka furi waayaan ilaahay ku hanuunan ilaahay rabbi raxmaan oo soo celi ilaahay rabbi raxmaan oo soo celi adaa awoodide qofkan oo awooda ma lahan yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi maal jimca joognaa inta dhakhtarka ku jirto waa arke yaa rabbiyo lugahooda u fududeeye sidee masaajidka ku ciiman qaataan ilaahay rabbi raxmaan oo masaajidka u noqo daawadiisa ilaahay rabbi raxmaan oo mid kasta albaabka ka soo geliyo oo shiiqa siduu uga farxo oo mar kasta daawada ee qur-aanka la wadwado yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi intaasaa ku barye yaa rabbi ilaahay u fududee mid kastoo kalaam allah oo intuu ku aqriye masaajid ku aqriye shiiqaan wallaahi bilaahi tallahi awooddu haysto daawadu haysto waa qur-aankan waxa kan ha uma leenina qur-aankan intaan shiiqa arko wallaahi mar kasta arko waan ku farxaa hadhaha maalintii koowaada dhakhtarka aadeyne maxaa u ogaabaa inay meel jirto haddaa ogaade xanuun kasta ilaahay qof kasta ha ka badbaadiyo baaraka allaahu fiikum man sallama alqur'aan allah idin barakeeyo runtii waxaan ugu talagalnay inaan jaaniskaasi walaalkeen siino dad badan oo weli isbitaallada aaminsan inay ilaahay kitaabka soo imaadaan mideeda kale qur-aanka inta keliya ma yaalo meel kastuu yaala qofka yaqiin unbaa la rabaa qofka inuu isqoraamiyo ilaahay qur-aankiisa aamino xataa haddii isbitaal la aadayo in qur-aanka lagu bilaabo ina hada alqur'aana yahdi wuxuu kugu hanuuninaa dhakhtarka fiican wuxuu kugu hanuuninaa isbitaalka ugu wanaagsan wuxuu kugu hanuuninaa daawada ugu fiican marka ninbaa ii sheegayay nakuru ninbaa gaari ka halaabay markaasuu yidhi waa nin qur-aankan aaminsana culamaha liigu yiri hal yahay qur-aan ha la saaro bir ma qur-aan la saaro ha la saaro yidhi yaqiintiisa weeye allah qaadir calaa kulli shay marka sheekhii qur-aan ku akhriyey wuxuu yidhi qur-aanka anaan lagu bilaabo waan ogaa laakiin dadka wax ka akhriyaan ka mid ahay gaariga inuu hagaaga laakiin mana sugin waa iskaga dhaqaaqo yidhi laakiin waxaa hubaal ah mid meel kale mari lahaa oo gaarigan birihiisa wado inuu meesha ku soo leexanayo qasban canhu oo ilaahay soo hagaajinaya subxaana wa tacaala lana qur-aanka waa duco mahma yakun asaga dhan waa duco marka dhakhtar bakistaan aan ka sheekeynay qisadiisa maamo waayeela oo meel baadiye joogto xanuunsatay xanuunkeedana waxaa la yidhi dhakhtarka caasimada joogo noocaasa keliya daweeyo xanuunada oo dhakhaatiirta dhan aysan daweyn karin u ahaa qol marka waxay ku jirtaa cariish yar baadiye beerteeda dhex joogta meeshaasay duco iyo alla barya ku bilowd ilaahay yo rabbi yo raxmaanu yo caafi ilaahu yo caafi ilaahu dhakhtarkaas magaciisay sheegtay ilaahu dhakhtar hebel meel hebellaayo jooga aniga uma tegi kariye waanu u baahnaa ilaahayow adaa ii keeni kara ii keen ilaahay wuxuu qadaray dhakhtarkii oo meel niminu madaxa intay u yeerteen emergency ku socdo oo diyaarad marwaxad la soo saaray inay ciladowto oo beerteeda ay ku soo degto diyaaraddii oo nuzuul itiraari ay samayso habeen waaye dhakhtarkii biyo cabuu u baahan yahay laguma talagelin in meesha lagu soo dego aftiin yaraa la arkay aftiinkaas meeshaas dada degana umalaynayna nageeya waaba qolkii doqdii degneed waa yaa tahay waay dhakhtar hebel aan nahay waa haddaan ilaahay berinaya inta ilaahay kaa keenay waa dhibaa nagu dhacaya saasaan u imaana almuhim waxaa la ogaaday maxalu shaahidka duqdaas in ilaahay subxaana wa tacaala dhakhtarkaasoo ku keenay marka walaalay adigaa ku abuuray horta allah kelida laga hayaa kelima adaa garanaya yaa abuuray allah horta ilaahay u sheeg bal intaada meelo kale la cararin horta ilaahay u sheeg ilaahay ehelkiisa raadso oo qur-aanka akhri oo rabbiyow adaa dawadaad gacanta ku hayo kadib asbaabtii sameeyo hindi aad kuma diidani laakiin horta qur-aanka weymo waxaan ku soo khatimaa hal qof magaciisina sheeg mar oo shariifka aad u yaqaano
macallimiintan waa yaqaan ramadaanka hore la tukanaya nin taajira lugaa barartay lugti markay barartay lacaguu haystaa hindi tikid iyo waxbuu isku hagaajistay asoo hindi u socdaa gabadh xaaskiisa waxay ku tidhi walaalow aaba baxdide intaadan bixin maad maxay ahaydoo majaalisa qur'aan maa tagtid sheekh waajidi iyo macallimiinta meesha joogaan qur'aan igu soo tuf maa dhahdid oo majaalis maxaa laga wadaa wallahi ani xataa ma tegine waa shukri masallaan ka arkay beejkeeda iyadoo saliid iyo qur'aan iyo meesha la sheegaye aadaa loo amaanay meesha tag wuu yimid markuu imaadayba 7 khatmaan ku bilownay bararkii waa degay safarkiina wuu baaqday majaalis qur'aan ninka ugu badan oo dhaqaale geliyuu yaada oo mutaneelkaas qurux badan meeshan almost 10 million soo lama gaarin intuu bixiyay wallahi wuu bixiyay marba kun marba million marba 3 uu waday soo uu waday markii u dambeysay wuxuu noo keenay 5 million waa dhulkan in lagu gadaa uu jooga jimcihii hore xataa wana la qadiyay inaan ku tusao malayna isla qadin oo ninkan ku sheegay marka quraankaas lagu caafimaada bismillah deerto quraanka bilow meel kale aad inaad ka maarantay u badan tahay taas aan yaqiinana u haystaa laakiin marka lacag ka soo dhamaato dadku waxay nagu wareeriyeen marka bahasha dollarki iyo shilin Kenya money la soo dhameeyo ay ku imaanayaan quraan raba ay xogo khidmeera macallimiinta xogo bariis loo karinayo wax ma bixin karta allah hay ka allah dhakhtaraan soo siiyo kulay waxba ma wadi أنا كان ما ضيعنا قف قرآن العقد درت هذا قرآن لان النقضي الباب كمجالس قرآن لقى اللي مدعين ما ندعي دونت بإذن الله توفيق الله نوافجي دعاء ذي ولكن نو دعية فرح سنة نغفل المانت كل جن مراد كان الله نوسهل اللهم صل على محمد